warbixinteenna waxaaynu maanta ku qaadan dhigi doonaa xaqiiqooyinka iyo qiyaasta ku saabsan dalka Turkiga, waddanka lagu yaqaano quruxda dhulkiisa iyo sidoo kaleeta taariikhda hogaamineed ee uu caalamka ku lahaa. Aniga oo qaybtani koowaad si gaar ah u dul istaagi doona quwadda dhaqaale iyo sidoo kale midda military ee dalka Turkiga. Dalka Turkiga ayaa sanadyadii la soo dhaafay waxa uu galaangal siyaasadeed iyo mid militariba ku lahaa qaaradda Aasiya iyo sidoo kaleeta qaaradda Afrika, isagoo weliba wadamo fara badan oo ka tirsan labadaasi qaaradood xiriiro caalami ah la yeeshay kana taageeray in ay dhaqaalahooda iyo sidoo kaleeta cududooda kor u soo qaadaan. Wadamada uu dalka Turkiga taageeraya waxaa ka mid ah waddanka Soomaaliya iyo sidoo kaleeta waddanka Liibiya. Dhanka Aasiyana sidoo kaleeta waxaa dhaqdhaqaaqiisa laga dareemayay gudaha Syria oo uu daris la yahay. Dalka Turkiga waxaa xilligani loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Turkiga, waxa uuna boqolaal sanadood ahaa xaruntii khilaafada Islaamka ee u dambeysay xilligaasi oo Mustafa Kemal Atatürk uu aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga kadib markii ay duntay dowladdii khilaafada Islaamka sanadu markay ahayd 1922 sanadkaasi oo la casilay suldaankii ugu dambeeyay ee Suldaan Cabdixamiid. kadibna 2 sano ka bacdi oo ku beegnayd sanadii 1924 ayaa uu bedelay Kemal Atatürk hanaankii dowladdii Islaamka ee Cusmaaniyiinta ay hogaaminayeen, kuna dhawaaqay in maalintaasi wixii ka bilowda dalka Turkiga la dhihi doono Jamhuuriyadda. Mustafa Kemal ayaana hoggaanka u qabtay dalkaasi sanadu markay ahayd 1923 ilaa uu ka geeriyooday sanadii 1938. waxa uuna intuu xilka hayay uu hirgeliyay nidaam cilmaani ah, waxa uuna ku soo rogay waddanka Turkiga hirgelinta dhaqamo badan oo reer galbeedka laga soo minguuriyay, isagoo arrinkaasi kala dan lahaa in waddankiisa Turkiga loo ogolaado inuu ka mid noqdo midowga Yurub. sidoo kaleete Mustafa Atatürk waxa uu dhammaanba bedelay fartii Carabiga ahayd ee halkaasi laga isticmaali jiray, isagoo u bedelay farta Laatinka. Turkigana maanta waxa ay wax ku qoraan farta Laatinka. Turkiga waa waddanka 37aad ee ugu dhulka ballaaran caalamka oo idil, iyada oo ay 3 jiho ka jirta badda. Tirada dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 82 milyan, halka dastuurka dalkuna uu ogolaanayo xorriyadda caqiidada ama tan diinta. Aqlabiyadda dadka waddankaasi Turkiga ku nool waa muslimiin, iyadoo muslimiintu tirada dadweynaha waddankaasi ku nool ay ka gaarayaan 98%, kuwaasi oo badankooda ka soo jeeda madhabta Sunniga. dadka Turkiga waa jaaliyadda koowaad ee waddanka Jarmalka, waxaana taasi loo sababeeyay in markii muslimiintu ay haysteen qaybo fara badan oo ka mid ah dalalka reer Yurub ay ku beermeen dad badan oo muslimiin ah weliba ka soo jeeda dalka Turkiga, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 4 milyan oo Turki ah in ay ku nool yihiin gudaha waddanka Jarmalka, iyadoo sidoo kaleeta jaaliyadda dalka Turkiga ay miisaaniyad culus ku leeyihiin wadamada sida Mareykanka, Australia iyo Canada. dagaalweynihii koowaad ee dunida Turkiga waxa ay la socdeen oo ay ka garab dagaalamayeen xulufadii dagaalkaasi lagu jibiyay. xilligaasina waxaa lagu qasbay in khilaafadii Islaamka ciidamadooda iyo maamulkooduba ay kala baxaan wadamo badan oo ay maamulayeen, weliba kuwa ku yaala qaaradda Yurub, ayagoo dagaalkii labaad ee dunida ka mid ahaa dalalkii dhexdhexaadka ka ahaa colaadda. muddooyinkii u dambeeyay dalka Turkiga waxa ay ku guuleysteen inay hoos u dhigaan shaqo la'aanta, iyagoo ka faa'iideystay kobac dhaqaale oo si kooban ay u gaareen. waxa ayna dhaqaalahaasi horseeday inay dib u soo noqoto saameyntii ay ku lahaayeen dunida, kana mid noqdaan dalalka ugu wanaagsan qaaradda Yurub, iyadoo warshadaha dalkaasi ay soo saaraan agabka sida dharka, gogasha, qalabka kale ee guryaha, cuntooyinka, sharaabka, agabka gaadiidka, kiimikada, qalabka elektaroonikada iyo sidoo kaleeta maaska. waxa uuna Turkiga noqday dalka saddexaad ee ugu soo saarka badan gogasha ama roogaga guryaha la dhigta, kadib marka laga reebo Talyaaniga iyo Jarmalka oo ku kala jira kaalinta koowaad iyo tan labaad. macdamaha ku jira waddankaasi waxaa ka mid ah dhuxul dhagaxa, naxaasta, birta iyo sidoo kaleeta sifarta, waana mid ka mid ah dalalka ugu badan ee soo saara macdanta karoonka.
turkiga waa dalka koowaad ee qaaradda Yurub iyo kan toddobaad ee caalamka oo idil ee haysta biyaha diiran ee ugu badan ee lakabka sare ee dhulka ku jira. biyahaasi oo ay ka faa'iideysteen ayaa waxa uu ka caawiyay dalka turkiga inay sidoo kaleete ay kor u qaadaan wax soo saarka beerahooda. turkiga ayaa inta badan cunnada dalka laga isticmaala waxaa laga soo saaraa gudaha dalka, iyadoo ay taasi yareysay dhaqaalihii faraha badnaa ee ugu bixi lahaa in ay cunnada dibadda ka keensadaan. haddaynu eegno dalxiiska waa tiirka ugu muhiimsan ee dalka turkiga uu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisa, waxaana uu noqday dalka turkiga dalka tobanaad ee dunida oo dhan ugu dalxiiska wanaagsan ee loo dalxiiso, iyadoo 10 milyan oo dad ah sanad walba halkaasi ay tagayaan. tusaale ahaan sanadii 2019 dalxiiska waddankaasi waxaa ka soo xarooday dakhli gaaraya 35 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. dalka turkiga waxa uu leeyahay in ka badan 200 oo garoomo diyaaradeed ah. shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airways waa mid ka mid ah shirkadaha duulimaadka ee dunida ugu wanaagsan ee laga leeyahay dalka turkiga. inkastoo aqlabiyadda dadka turkiga ay ahaayeen muslimiin, haddana xilligii hore waxaa jiray qaanuun lagu mamnuucayay xidhashada xijaabka ee iskuulada, jaamacadaha, xarumaha dadweynaha iyo sidoo kaleete goobaha kaleete ee caamka ah. waxaase qaanuunkaasi laga qaaday iskuulada sanadii 2013 iyadoo 6 ka mid ah jaamacadaha dalka turkiga ay ka mid noqdeen liiska 500 ee jaamacadaha dunida ugu wanaagsan. sidoo kaleete turkiga waxa uu ku guuleystay in dhanka militariga uu kor u qaado. daawadayaal, qaybteena xigta barnaamijkan waxa aynu ku eegi doonaa turkiga awoodiisa military iyo waxa uu sidoo kaleete ku haminaya in uu gaaro. taniya intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo inkaga tegaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.